tiro badan oo dadweyne ayaa isweydiiya waxa ay bulshada caalamku ugu mashquulsan yihiin saaminta guud ee koonkan adduunka xilli aan waqti badan lagu luminin sahan lagu wada sameeyo dhulka aynu ku noolnahay. barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa sababta ay dalkii midowga Sofiyeeti u qoreen godkii ugu dheeraa dunida kaasoo dhererka jooggiisa hoose gaadhayay 12,000 oo mitir, waana god ka gundheer moolka badaha waaweyn, iyadoo jawaabta sababtaasina aynu u heli doono inta aynu barnaamijkeena ku dhex jirno. tartankii quwadaha waaweyn ee dunida ee kala horkacayeen Mareykanka iyo midowga Sofiyeeti waxa uu ahaa mid dhinac kasta ah oo socday muddo 45 sannadood, waxaana tartankooda ugu sii adkaa kii hawada sare iyo kii samaysashada hubka waxbaabiya. laakiin arrimaha badankeena inaga dahsoonaa waxaa ka mid ahaa in tartanku aanu ahayn mid hawada sare iyo kantaroolkeeda loo geliyey oo keliya, laakiin uu jiray tartan ku saabsanaa gacan sarreynta dhulka hoose, iyagoo mashaariic kala duwanna u samayn jiray gaaritaanka hadaf keliya. waxaana ka mid ahaa mashruucii Mareykanku wadeen ee ay sanadkii 1961 ku bilaabeen inay ku qodaan god dheer oo ay ku doonayeen inay dhulka hoos u qodaan ilaa ay natiijo qarsooneed ka gaadhaan. waxaana qorshuhu ahaa inay qodaan ilaa 4,000 oo mitir, laakiin mashruucaasi lagama gaadhin wax guula, sababtoo ahayd iyadoo xukuumadda Mareykanku joojisay miisaaniyaddii loogu talagalay kadib markii uu socday muddo 5 sannadood, natiijo lagu sii dheeradaana ka soo bixi weyday. dalkii midowga Sofiyeeti ayaa iyana bilaabay barnaamijkoodii tijaabada cilmiyeed ee dhulka hoos loogu qodayay sanadkii 1962, waxaana la calaamadeeyay halkii godka laga bilaabi lahaa sanadkii 1965, halkaasoo noqotay magaaladii ku taalay waqooyi galbeed dalkii midowga Sofiyeeti ee Sabaoriyan. waxaana sanadkii 1970 mashruucaasi laga gaaray xogo iyo asraar badan oo laga diiwaan geliyey intii uu socday mashruucaasi dhulqodistu, waxaana ay daha qaadeen waxyaabo badan oo aanay fasiraadooda haynin culimmadii xilligaasi. waxaana ka mid ahaa in dabaqada dhulku isugu bedelo una noqdo basal oo la aaminsanaa inay tahay 3 ilaa 6 kilomitir, inaanay haba yaraatee waxba ka jirin. taasina waxay keentay in culimmada qaarkeed dib ugu noqdaan aragtiyihii iyo xisaabaadkii ay ka haysteen qaabka ay dhulgariiradu u dhacaan iyo arrimo kale oo geophysical ah. waxyaabihii kale ee culimmadu godkaa qodisay ay daha qaadeen waxaa ka mid ahaa biyaha jiifa masaafo 7 kilomitir oo dhulka hoosa, tallaabadaasoo ka wada yaabisay dadkii xogtoodu gaadhay. waana masaafo 7 kilomitir oo dhulka hoostiisa, taasoo ay noloshu suuragal ka tahay maadaama ay biyo jiifaan, waxaana jirta in meel kasta oo biyo laga heli karo noloshana laga heli karo. waxaana culimmadu halkaa ka heleen ilaa 25 nooc oo bakteeriyada loo yaqaano cawaaliq, waana bakteeriyada ku noolaan karta biyaha saafiga iyo kuwa dhanaan labadaba. waana arrin aanay marnaba filaynin in deegaan noocaas oo heerkulkiisuna uu aad u sarreeyo ay noloshu ka jiri karto. sanadkii 1992 ayay ahayd markii mashruucaasi dhanka baaritaanada loo joojiyey sababo badanna oo soo food saaray, kadib markii qoditaanka godkaasi uu jooggiisu marayay masaafo 12,200 oo mitir, iyadoo kuleyl xad dhaaf ah halkaa loogu tegey. shaqadii socotayna ka dhigay mid aan la sii wadi karin oo u baahatay qarshayaad aad u fara badan. ilaa maantadan aynu joognana mandaqadii laga qoday godkaasi waa mid go'doona oo aan dadka loo ogolayn inay galaan. haddaba inkastoo ay masaafada 12,000 ee mitir ee la qoday ay tahay mid aad u dheer, ayaa haddana marka dhanka kale laga eego waxay 2% oo keliya ka noqonaysaa masaafada guud ee u dhaxaysa lakabka sare ee dhulka iyo xuduntiisa hoose.